Kalluunkan dahsoon wuxuu noqday dhacdo fayras ah. Waa kan sababta. Bishii Febraayo, cilmi baarayaal ka socda hay'adda ilaalinta Ondrik Tenerife ayaa qiyaastii 2 kilomitir u jirta xeebta jasiiradda Tenerife, iyagoo raadinaya shark markii ay arkeen wax aad u qalaad. Sawir qaade David Jarabogu ayaa duubay anglerfish humbacka Melanoetus johnsoni, nooc ka mid ah badda madow oo ku dabaalanaya meel u dhow dusha sare ee biyaha qoraxda. Kalluunkan weligood hore looma arag iyagoo nool maalintii, maadaama ay caadiyan ku nool yihiin aagga gabowga oo qoto dheer 2 eberm ilaa 6 eberm. Fiidiyowgu waxa uu ka kariyey jawaab naxariis badan baraha bulshada, iyada oo qaarkood ay kalluunka u arkaan in uu yahay astaanta dumarka ama qof u eg icarus oo ku dabaashay meel aad ugu dhow qoraxda. Falcelintu waxay tusinaysaa aragtidayada badda moolka dheer, oo muddo dheer la iska indho tiray ama loo arkayay inay tahay goob bahalnimo, laga yaabo inay ugu dambayn isbeddelaan. Nolosha yaabka leh ee anglerfish. Anglerfish aad bay uga yar yihiin sida aad u malaynayso inay yihiin. Muunada bogu ee la duubay waxay ahayd dhedig, taasoo caadi ahaan koraysa ilaa 1 am. Makhluuqa waxaa loogu magac daray soo jiidashada bioluminescent ama SA. Shucaaca dhabarka dambe ee wax laga beddelay waxa uu soo saari karaa dhalaal loo isticmaalo in lagu soo jiito kalluunka ama xagasha ugaadhsiga moolka hoose ee badda. Bioluminescent-ka waxaa soo saara bakteeriya simibiyootig ah oo ku nool gudaha madaxa guluubka ee SA. Kalluunka lab ee kalluunku waxa uu ka maqan yahay soo jiidashada caanka ah oo aad ayay uga yar yihiin, inta badan waxa ay gaadhaan dhererka 3 am oo keliya. Kalluunka labka ah waxa uu qaybta hore ee noloshiisa ku qaataa raadinta gabadh uu markaas isku xidhi doono. Aakhirka waxa uu ku milmi doonaa habdhiska wareegga dhiigga iyada oo ku xidhan gebi ahaanba nafaqooyinka, oo uu noloshiisa ugu noolaado dulin ama xiniinyaha nool. Lama garanayo sababta kalluunku u dabaalanayay si toos ah oogada agteeda. Cilmi baarayaashu waxay qiyaaseen in dabeecadda laga yaabo inay la xiriirto isbeddelka heerkulka biyaha ama in kalluunka uu si fudud u ahaa dhammaadka noloshiisa. Ilaaliyaasha ayaa dhowr saacadood eegay kalluunka ilaa uu ka dhintay. Meydkeeda waa la ilaaliyey waxaana la geeyey Matxafka Dabeecadda iyo Arkeologi ee Santa Cruz de Tenerife, halkaas oo lagu sii baran doono. U naxariista shaydaanka badda. Fiidiyowgu wuxuu si degdeg ah u galay fayras, isagoo dhiirigelinaya fiidiyowyo falcelin ah oo aan tiro lahayn, farshaxanno, memes, animation qaabka bixar iyo gabay cinwaankiisu yahay Icarus waa anglerfish. Mid ka mid ah isticmaale Reddit ayaa faallo ka bixiyey. Waxaan jeclahay in aan u maleeyo inay tahay ayeeyo duq ah oo la ixtiraamo oo ku riyooto nolosheeda oo dhan inay aragto iftiinka qoraxda iyo adduunka ka sareeya biyaha. Way og tahay in wakhtigeedii soo dhowaa, markaasay sagootisay asxaabteeda iyo qoyskeeda, oo ay u soo dabaashay dhanka nuurka iyo wax kasta oo ay u hayso iyada oo nolosheeda sida kalluunku jirka ah ay soo dhammaanayso. Hal qof ayaa kalluunka ku tilmaamay inuu yahay boqortooyada Roomaanka ee dhediga ah, iyadoo loo eegayo dareen dhiirigelin leh oo buuxisay kaalin la mid ah tan boqortooyada Roomaanka ee la filayo inay u qabato rag badan. Bogu iyo Ondrik Tenerife ayaa tan iyo markaas ka faallooday falcelinta dadweynaha. Boostada asalka ah waxay ku qoran tahay Isbaanish, laakiin tarjumaadda Ingiriisiga tooska ah ee Instagram ayaa hoos ku taal. Waxa uu noqday astaan caalami ah, taasi waa caddahay. Laakiin ka fog jacaylka iyo isku dayga bini'aadantinimada ee lagu soo qaatay sheekadeeda naxdinta leh, waxay ila tahay in dhacdadani ay tahay in lagu baraarujiyo xiisaha badda ee dadka, gaar ahaan kuwa yaryar, iyo laga yaabee, waxay sidoo kale u adeegtaa in fariimaha ku saabsan ilaalinta deegaanka badda ay gaari karaan dad badan oo kale. Aragtida dhinaca kalluunka anglerfishka. Xaaladda nasiib darada ah ee angelfish waxay ina siinaysaa dhammaan fursad gaar ah oo aan ku qadarin karno xayawaankan kale ee qarsoon iyo fursad cilmi baarayaasha si ay u sii daraaseeyaan. Marm 13 Naturalist Abina. Laga soo bilaabo naxdin ilaa geesiyaal. Dareenka naxariista ee kalluunka anglerfishku waa lama filaan. Makhluuqaadkooda oo dhalaalaya iyo afkooda ka buuxsamay, makhluuqaadku waxa ay muddo dheer ahaayeen argagaxa ugu weyn ee yaamayska. Sida aan meel kale ku qoray, kalluunku beddelka galmoodka ee aadka u daran iyo dulinka, oo ay weheliso anatomigiisa aan degganayn, ayaa ka dhigay safiirka astaanta u ah badda moolka. Shisheeyaha anglerfish ama angler ku dhiirigeliyey waxay u muuqdeen kuwo iska soo horjeeda filimada sida Star Wars Episode E, Teb Hantom Menace, 1999, Helitaanka Nemo 2 filimka SpongeBob SquarePants 2 iyo Luca 2 Soo dhoweynta Icarus, sida qaar ugu yeeraan iyada, dhaqanka caanka ah waxay muujinayaan awood la yaab leh oo loogu talagalay naxariista xayawaanka aan caadi ahayn ama qurux badan. Waxay si weyn uga duwan tahay masiirka kalluunka badda qoto dheer ee Psitrolutes maridus, kaas oo 2 loo doortay xayawaanka ugu foosha xun adduunka. Malaha magacu waa tilmaan, dadku waxay ku arkeen kalluunka noole ku dadaalaya inuu gaaro iftiinka, kaas oo u dhintay natiijada raadinta.
laakiin saadaashayada shucuurta iyo rabitaanka bani'aadmiga ee ku wajahan xayawaanka aan bini'aadmiga ahayn miyay halis u yihiin fahamka xaqiiqada sayniska. Dhab ahaantii laakiin, sida cilmi-baadhaha deegaanka ee Maraykanka Stacy Alaimo ay ku dooday, waxa kale oo laga yaabaa inay leedahay faa'iidooyin. Xayawaanka badda qoto dheer waxaa badanaa lagu sawiraa shisheeye ka yimid meeraha kale, waxaanan u malaynayaa intaasi ay dadku xiisaynayaan sababtoo ah dhammaanteen waxaan xiisaynaynaa wax cusub iyo wax la yaab leh iyo isdhiibitaanka. Badda mool-dheer iyo dadka degganba waxay la kulmaan khataro isa soo taraya oo ka imaanaya macdan qodista badda, wasakhowga caagga ah, iyo saamaynta isbeddelka cimilada ee bini'aadamku keenay. Waxay u baahan yihiin dhammaan naxariista ay heli